الحمد لله رمضان مبارك دمان أمة المسلمين تاميل كستو جوغان مقعي ودكتور من الخير محمود عمر إن وحكو شقينا يستيدي سنة قدام بيسيبه إن أوبس أنجين أم حالة دمركا إيو وريدة إيو أرمها دمركا خاصة هانا ينكو شقيني waxaan maanta halkan ka soo jeedin doonaa maadaama aynu ku jirno bishii Ramadaan ee barakeysnayd uurka iyo soonku sidee bay isku waajihi doonaan guud ahaan waxa la isla wada waafaqsan yahay haday diinta islaamka tahay iyo haday ay tahay maxay hayday khabiirada ku takhasusay arrimaha khaaska oo ah dumarka guud ahaan waxa la isku wada raacsan yahay inay hooyadu ayna soomin sagaalka bilood ee uurka ay ku sidee ilmaha waa tala ahaan wax la door bidaa markaa inaanay soomin hooyadu waayahay haddii laakiin ay hooyadu go'aansato inay soonto maxaa loo baahan yahay inay samayso ayaan halkan kaga hadli doonaa kow waxa loo baahan yahay hooyadaas inay samayso kow general check up inay samayso ka hor inta ayna soomin waa inay caafimaadkeeda guud eegto oo ay dhakhtarkeeda la xiriidho oo la baaro oo xaaladeeda la ogaado inay caafimaad qabto iyada iyo ilmuhu iyo in kale laba waxa loo baahan yahay in la ogaado waqtiga uurka ay kaga jirto marka waqtiga uurka sagaalka bilood waxa loo kala qaybiyaa 3 meelood oo min 3 bilood ah 3 bilood ee u horeeya khaas ahaan waa mamnuuc hooyadu inay soonto sabab la xiriira ilmaha yar darteed ayaa loo diidaa inay soonto hooyadaas sababaha waxa kamid ah marka miisaankiisa oo hoos u dhaca ma karo ilmuhu hadii 3 bilood ee u horeeyay ay hooyada inta Ramadaan ku soo beeganto ay ku adkaysato inay soonto waxa kale oo aan korin madeerta oo ah marinka ay u soo marayso waxa loo wixii nafaqa ee hooyada uga imanaysa sida darteed 3 bilood ee u horeeya riski buu ku yahay ama halis buu ku yahay soonku ilmaha yar ee uurka ku jira sida darteed hooyo walba waxaan ka codsanaynaa inaanay waxba ku adkaysan inay soonto bisha Ramadaan ee dib ka dhigato iyadoo oo free ah ay soonto oo aan uur lahayn 3 bilood ku soo xiga waxa loo yaqaan second trimester iyadana riskigu aad bay u badan tahay waayo xubnaha jirka ilmaha yar organadiisa oo dhan ayaa waqtiga ku jira waqtigii ay horumareen ee qaan gaadhka ku dhawaanayeen sida darteed waa ka mamnuuc hooyadu inay soonto inta u dhaxaysa 22 week ilaa 27 week hooyada inta aan ku jirin muddada aan ku jirin aynu soo sheegnay hadii ay go'aansato inay soonto maxaa looga baahan yahay wax looga baahan yahay inay suxuurta ayna ka tagin ay ku dadaasho inay habeen walba 30 cisho ee bisha Ramadaan ay suxuurato waxa looga baahan yahay cuntada ay ku suxuuranaysaa inay ahaato cunto caafimaad qabta oo ka kooban noocyadii kala duwanaa ee cuntooyinka sida carbohydrate-ka iyo protein iyo xogaa fat iyo vitamins iyo fiber ay u baahan tahay hooyadaas waxay u baahan tahay kale inay biyo badan cabto oo ka badan intii ay awal hore cabi jirtay inta u dhaxaysa suxuurta ilaa iyo afurka u dhaxaysa oo ugu yaraan 3 litir oo biyo ah taas waxay ka hortagi doontaa in ilmaha yar ay la soo kulanto oo la kulmo in biyaha ilmaha yar ee loo yaqaano xabku ay ka yaraadaan waxa kale oo loo baahan yahay hooyadu inay iska ilaaliso cuntooyinka ay ku badan tahay sonkortu ama ay ku badan tahay milixdu sababtoo ah hadii ay ku suxuurato cunto ay milixdu ku badan tahay waxay ka dhaxlaysaa inay haraad badan la kulanto waxa loo baahan yahay kale in sonkorta iska yareyso waxyaabaha sonkorta ku badan tahay sonkorta dabiiciga maaha waa tan caadiga ee cadaanka ah ee lagu dul daro way iska ilaalin doontaa hooyadu sababtoo ah waxa dhici doonta inay markay cuntana ay sonkorteedu aad u kacdo marka dambena ay hoos u dhacdo taas oo isbedelkaas ku imanaya uu keeni karo madax xanuun fara badan iyo inay dawaqaad yeelato waxa loo baahan yahay oo kale hooyadu inay cunto inay joojiso shaqooyinka ay guriga laga qabto siiba kuwa adag ee culculus looma baahna hooyadu inay qabato sida dharmayd iyo madbuxo saacado badan lagu guda jiro looma baahna hooyadu inay samayso waxa loo baahan yahay kale inay iska ilaaliso inay masaafo dheer u lugayso iyo inay wax culculus qaado waxa loo baahan yahay oo kale hooyadaasi inay samayso nasiimo aad u fara badan hadii ay Ramadaan ku soo beegto
waqtiga samarka ama guga loo yaqaano waxa lagu yaqaanaa guga maalmihiisu way dhaadheer yihiin habeenkiisuna uu gaaban yahay maalinta dheer waxa laga dhaxlayaa in waqtiga la soomanaanaya ee daytime-ku uu aad u fara badnaado saacado badan la soomanaado sidaa darteed maadaama ay saacado badan soomayso hooyadii waxa loo baahan yahay inay rest ku jirto daytime-ku suu u dhan yahay ay rest ku jirto ayaa loo baahan yahay hooyadaas waxa loo baahan yahay waqtiga samarka haday ku soo beeganto waa sida imkaan ku jirno oo kale gugi iyo ay kulmaan ramadaantii waxa loo baahan yahay hooyadaasi inay nasiimihiina ku egaato meesha ay ku nasanaysaana ay ahaato meel hadh ah oo ay hadhka had iyo jeer kulba hadhku dhinacu ka xigo ay joogto waxa loo baahan yahay marka ay aftirato ee afurka la gaadho hooyadaasi inay kaantaroosho nooca cuntada ay qaadanayso waxa kaloo loo baahan yahay inaan cunto fara badan mar kaliya wada cunin waqtiga la afurayo waxa kaloo loo baahan yahay marka ay aftirato inay active ahaato oo ay socsocoto oo ay gurigeeda wixii shaqo ee fudud ay qaban karayso ay qabato ama taraawiixii soo tukato